بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هاي عبد القادر محمد براها كورسدا ندوك اسنشيال وانا مالنتين اللوات اينو قادن انو امتحانها ندوك اسنشيال سيسكو ندوك اسنشيال شلay waxaynu soo qaadanay hordhac ku saabsanaa yani maxaa lagula jeedo network connection waxa lagula jeedo iyo communication waxa lagula jeedo maanta iyo inta isticmaasho internetka adduunka joogta ayaynu shalay soo qaadanay maanta se waxaynu qaadan doonaa noocyada uu kala baxo networka iyo cidda iskale networka wali ma isweydiisay internetka kan aad isticmaalayso cid baa iskale ma isweydiisay waxaad isleedahay malaha hormuud baa iskale haddaan koonfur joogno shirkadaha kale goolis iyo waqooyi ka shaqeeya iyaga iskale baad isleedahay soo ma hadda waxaad ogaataa the internet is not owned by any individual or group. Internetku ma lahan cidina ma lahan kooxna ma lahan mana lahan shakhsi mana lahan karo. The internet is worldwide collection of interconnected networks. Waa interconnected networks qalabyo la isku xirxiray ee adduunka meel walba yaala kuwaasoo dhaliyay network dhaliyay. Internet work ayaa ka dhashay ama network waxa la yiraahdo ayaa ka dhashay or ama internet for short waxa loo soo gaabiyay ayaa ka dhashay cooperating with each other midkoodba midka kale ayuu kaashanayaa maxay ku wada kaashanayaan marka to exchange inay isdhaafsadaan information xog ay isdhaafsadaan using ayagoo isticmaalaya common standard waynu soo sheegnay inuu jiro habdhiska network inuu jiro aanu maaragtay network isaga qalab kaligi aanu shaqeyneynin loo baahan yahay waxa la yiraahdo common standard protocols waxa la yiraahdo loo baahan yahay kuwaasoo turjumaya fariinta aad dirto iyo waxay tahay iyo daatada iyo wax waliba turjumaya through ayadoo loo marayo marka fariintaas xagee maraysaa marka xogta aynu direeno through ayadoo loo marayo telephone wires fiilooyinka telefoonada aynu isticmaalno ee loo DHC DSL-da router modem xaafadaha yaala imika hormuud ay kale leedahay oo kale Somtel oo kale kuwa leedahay oo kale ama Bluecom iyo shirkadaha kale modem routerska ay leeyihiin DSL-ka digital subscriber lane laga soo gaabiyay marka through ayadoo loo marayo telephone wireskaas ayay soo maraysaa signalka imika waxaa jira fiber optic cables ayaa jira iyaguna qayb bay ka yihiin kuwa ay maaragtay fariintu ay soo marayso waxaana loo isticmaalaa waynu ka warrami doonaa waxa loo isticmaalaa iyagu iyo sida ay ku shaqeeyaan iyo noocyada ay kala yihiin fiber optiga waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo wireless transmissions kaasoo ku shaqeynaya teknolojiyad la yiraahdo RFI radio frequency wuxuu ku shaqeynayaa number ayuu ku shaqeeyaa number frequency waxa la yiraahdo wirelesska iyo waxa kaloo jira waxa la yiraahdo satellite links ayaa jira taawarada magaalada ku yaala ee saxamadu ay ku xiran yihiin kuwaasoo hawada Ethernet kalaadka ka qaadanayo internet marka internet users ka connect exchange hadii ay haystaan fiilooyinkaas iyo qalabkaas isku xiran hadii ay haystaan marka waxay haleeli karaan inay isdhaafsadaan xog ayay haleeli karaan qaabab kala duwan ayay maaragtay ayadoo loo marayo marka everything that you access online wax waliba ee aad internetka ka raadiso markaas is located waxa uu yaalaa somewhere goob ayuu yaalaa ee aanad adigu garaneynin on the global internet ee dunidan dhisan shalay waa soo sheegay Soomaaliya shalay waxaan ku dhahay internetku waa sida wadan camal ama duni dhisan dunidaas oo luqad gaar looga hadlo luqadeedana way tahay bit koorsadani qof kasta ayay kicinaysaa qof kasta ee IT baranayo qaasatan qofka raba inuu noqdo biri network engineer koorsadan asaaska network ka waramaysa si qurux badan bay maaragtay maxaa la yiraahdaa si qurux badan baan jecelahay inaan kaaga dhaadhiciyo conceptiga network waxa uu ku saabsan yahay adigoo buuxa ee network asaasiyaadkiisa garanayana aad u gudubto road mapka labaad ee maaragtay maxaa la yiraahdaa Cisco recommendation maartay career path marka social media sites ka waxyaabaha inuu booqano sida Facebook, WhatsApp ka, Instagram ka
waxyaabahaas oo dhan waxaynu ku aragnaa xog la soo dhigay iyo xog taalaanu ku aragnaa laakiin xogta cidda soo dhigtay iyo sida loo soo dhigay iyo ma garan kartid adiguna xog baad dhigaysaa qof baad u diraysaa soo marka waxa accesska ah ee idin dhexeeya waa network ama internet work wax la yiraahdo ayaa idin dhexeeya multiplayer gameska kamida messaging centers ayaa kamida dadkaas oo provide bixiya email ay bixiyaan online courseska kamida koorsada hadda imika aad daawanayso kale ee aan soo geliyay bandwidth iyo throughput kan ku arki doonaa waxyaabaha la soo geliyo iyo cabirka daatada adigu aad markaas haysatid ee saamixaysa inaad ku daawatid marka all of these internet destination waxa la yiraahdaa meeshii ugu dambeysay fariintaada gaartay qofkii saaxiibkaaga ahaa ee fariinta aad u dirtay iyo destination ku ah adigu source yaa tahay marka waxa idin dhaxeeya marka intermediate device baa idin dhaxeeya oo ku raaxayso koorsada ku raaxayso koorsadan marka asaasiyaadkan inaad aad ugu raaxaysataan rabaa dabeetana adoo full ah yani network aan waxba looga sheegaynin asaaskiisa maaragtay road map ka gala labaad Cisco recommendation career path marka all of these internet destinations marka dhammaan destination waxa la ogala jeedaa masiir wadada ugu dambaysa ee waxaan ku dhacayaan ee mustaqbalku yihiin are connected waxa lagu xiray to local networks ayaa lagu xiray local networks waa kuwa guryaha yaala iyo kuwa dhismayaasha jaamacadaha iyo iskuulada iyo isbitaalada dhex yaala daadku waa soo marka sendii diraya ama aad ku dirayso adiga dirayo and receive waxaad helaysaa information xog baad helaysaa through ayadoo loo soo marayo the internet muxuu ka kooban yahay markaas waa sidaan soo sheegnay wuxuu ka kooban yahay through telephone wires soo maraysa daatadaas loogu soo dirayo signalka xogtaasi lagu soo dirayo waxay soo maraysaa telephone wires soo maraysa fiber optic cables soo martaa dhulka badaha hoostiisa la marsiiya wireless ahaan bay ku soo gaari kartaa satellite kaaga soo gaari kartaa marka qaabkaas ayuu maaragtay network-ga u kala baxaya marka internet-ka uu kala baxaa cid lehna ma jirto waxaad ka fikirtaa bal isdhexgalkan yani maxaa la yiraahdaa maalinlaha ah ee dhacayo dadku ay wadaagayaan isku day inaad ka fikirto qofba website buu booqanaya war buu ka aqrinaya imika hadda adduunku waxa ka dhacay oo jiray pandemic covid-19 baa jiray oo aad u saameeyay dunida dhan marka dadku waxa u saamixi weysay inay shaqooyinkoodii tagaan ardaydu inay ka qayb qaataan daraasadaha jaamacado ay bixiyaan iskuuladu marka covid-19 kii wuxuu sababay inay dhacdo marka covid-19 kii wuxuu sababay inay dhacdo yani dadku inaanay saarkin noloshiina daruuriya loo yahay wax kasta loo baahan yahay waxa dhacday inaan suuq la aadi karin waxa dhacday inaan war la socon karin oo waraaqadaha la soo saarayo aan la aqrin karin waxa dhacday in shirarka iyo goobaha dawladaha iyo xafiisyada aan lagu kulmi karin maxaa dhacay waxa dhacday marka in yani maxaa la yiraahdaa internetka xilligaas aadka loo isticmaalay inkastoo maalin walba la isticmaalo wax ka badan 5 bilyan oo qof ayaa isticmaalaysa maalin kasta marka sidaas darteed maxaa la yiraahdaa faa'iidooyinku leeyahay tusaale waxa ka soo qaadaa maalmaha sida dhibaatada ay u jirtay alaab baad u baahan tahay waxaad ka iibsanaysaa online baad ka iibsanaysaa maxaa ku saamaxaya marka maxaa u saamaxay qofka alaabta inuu soo geliyo maxaa la yiraahdaa social media waxa u saamaxay inuu network access haysto hadduu internet access aanu haysanin ma awoodi karayo inuu shaqeeyo adiga marka ma arki kartid xogta qofkaas oo aan soo dhigan isaguna adigoon internet haysanin ma arki karaysid sidaas darteed marka waa live maaragtay maxaa la yiraahdaa asaasiyaadka nolosha ayuu qayb ka yahay sawiraad qaadaysaa waxaad gelinaysaa jimco wanaagsan waan garanaa Facebook waxaan ku soo qorqorno gaming-ka marka la dheelayo kale waxyaaba PlayStation-iska laga dheelo marka typeska network-ga u kala baxo ayaynu hadda soo galnay mid kamid ah local networks marka waxay ku yimaadaan in all sizes yani cabir kasta ku imaan karaan iyagu haday tahay guri haday tahay laba dhismo la isku xiray haday tahay dhismo weyn haday tahay goob military haday tahay goob dawladeed xafiisyada kulli marka they can range from simple networks iyagu marka maxaa la yiraahdaa tira ahaan cadadku waxay noqon karaan consistent of two computers
laba computer wixii ka badan ee isku xira ayaa ka dhalanaya marka. Two networks connecting hundreds of thousands of devices. Waxaa lagu xirayaa marka kuwaasi labada computer ayaa waxaa lagu xirayaa 100,000 of devices ee network ayaa lagu xirayaa. boqolaal kale lagu xirayaa sida switcheska iyo router iyo firewalls iyo waxyaabahaas baa aanu arki doonaa lagu xirayaa. Networkska marka network installed waxaa lagu yani maxaa la yiraahdaa kiciya ama lagu shubaa ama lagu maaragtay sameeyaa in small officeska ayaa kamida xafiisyada yaryarka ayaa loo sameeyaa or ama homes guryaha loo sameeyaa and home offices iyo xafiisyada kuwa guryaha laga dhex shaqeeyaa. Arrivary to us waxaa loo tixraacaa SOHO waxa la yiraahdo yani waxaa loo yaqaanaa small office home office network ayaa la yiraahdaa. SOHO networks marka ladii waxay ku ogolaanayaan share inaad wadaagto resources waxa wax xogo nooc walba isugu jira sida sawiro sida muuqaalo sida music wixii maqal iyo muuqaalo iyo sawiro iyo documentiba intaba wixii oo dhan baa iswada raacaya. Resources la isku dhaha marka resources kaas ayuu ku saamaxayaa SOHO network inaad wadaagtaan few local users dad kula jooga markaas inaad wadaagtaan ama dad magaalo qura dhismo qura meel qura aad wada joogtaan xaafad qura aad wada joogtaan inaad wadaagtaan. in business markaynu imaano ganacsiga large networks ka marka yani internetada kuwa waaweynka can be used waa loo isticmaalaa to advertise in lagu xayeysiiyo iyo sidoo kale sell lagu iibiyo productska. waxaa lagu iibinayaa productska alaab baa lagu iibinayaa sidoo kale order supplies yani alaab baa la dalbanayaa and communicate with customers sidoo kale waxaa lala xiriirayaa oo lala falgalayaa macaamiishii alaabta soo dalbatay. Communication over network yani isla falgalkani networka gudihiisa ka dhex dhacay usually inta badan more efficient waa mid si rasmi ah si qurux badan u dhacaya and less expensive yani wuxuuna ka yani raqiisan yahay than traditional forms of communication. qaababka imika aynu ku wada xiriirno ayuu ka fiican yahay. tusaale imika alaab baa la soo maaragtay maxaa la yiraahdaa dukaan baad leedahay dukaanku waxaa alaabta aad haysid waxaa daruuri u ah kuwa kale ee magaalo kala jooga sidee baa yani ay u heli karaan marka alaabtaas waa inaad network haysato. laakiin haddii aanad network aanad haysanin access network haddii aanad haysanin ma arki karayaan alaabto. sidaas darteed marka communicationska qaab hadalkii iyo wixii oo dhanba yani ma saamaxayo waa in network la helo. sidaas darteed marka ma saamaxayo in ninkan ganacsadaha iyo ninkan kale ee alaabta inuu iibsado raba ee magaalo kale ku nool sidoo ku helaya alaabta magaaladani waa looga baahan yahay alaabta magaalo kalena way taalaa waa in uu jiro network yani alaabta ma heshay iyo waxyaabahaas oo kale alaabtii qofkii markuu arko uu iibsaday ma heshay iyo yani maxaa la yiraahdaa maxaa dheeraad oo laga caabiyaa iyo su'aalaha wixii la mid ah oo alaabta qaabka uu isticmaali lahaa iyo waxyaabo inkastoo imika aanu jirin maaragtay e-commerce-ga Soomaaliya oo aan wax tayo aqoon laha ku dhisnayn. Okay marka networkska marka xitaa waxaa kaloo jira regular mail ama fariimo in la diro ama long distance phone calls taleefanada in la iska waco kaliya internet yani ma ahan waxaan WhatsApp ku dirno even simikarka aad haysato ee hormuud leedahay waa network. haddii aanu isagu wax network aanu haysanin oo aanu yani serverkooda aanu ka diiwaan gashanayn maaragtay xogta simikarkaagu ma shaqeynayo sidaas darteed ma wici karto cidna ma wici kartid. marka networkska marka allow us waxay noo ogolaadaan for rapid communication inaynu yani waxyaabo badan aynu communication badan inuu dhaco oo aanu fariimo badan dirno instant messaging inaynu fariin dirno si durbaba aynu fariin dirno maaragtay naloo soo jawaabo haddana and provide waxayna siinayaan access wado ayayna siinayaan to information xog aynu ku helno stored ee ku keedsan on network servers yani network ku keedsan tahay macnaha muuqaalada YouTube-ka la soo dhigo kale YouTube-ka waa application kaas wuxuu ku jiraa server kaas wuxuu ku xiran yahay internet-ka
adigu marka waad dhaxgalaysaa waad garaacaysaa youtube.com markaad booqato waa inaad adiguna internet haysato dunidaas marka ay waxa la yiraahdaa global internet ayaa la dhahaa oo aan ku wada jirno halkaas luqadood ee bit la yiraahdo ayaan ku wada hadalnaa marka businesseska iyo so networks usually provide waxay bixiyaan a shared connection yani xiriir wadaag ayay bixinayaan connection wadaaga to the internetka the internetka is considered waxa loo tixraacaa a network of networks يعني networkية بدن كسي دشاي tusaale nabaalka imika ay modem router ka xaafada ku yaalo waa device network kamida device kaas waxaad ku isticmaalaysaa xaafada marka lagu soo xiro isla markiiba waxaad gashanaysaa username-kiisi waafigaad gashidaysaa isla markiiba waxa ku soo baxayo SSID name-kiisa ku soo baxayo shirkadda ay ku siisay dabeetana waad buubuuxinaysaa password-ki aad gelinaysaa qof kale aad gelinaysaa muxuu noqonayaa marka network of networks markaan saas u wada xiriirno wuxuu noqonayaa network of networks ayuu noqonayaa because maxaa yeelay it is literally made up waxa laga sameeyay thousands of local networks ayaa laga sameeyay that kuwaas oo are connected kuwaas oo la isku xiray to each other midka kale lagu xiray marka halkan sida kaaga muuqata waxa yaala faylal bayaala speakers sameecada yaala halkan waxa yaala computer sidoo kale halkan waxa ku yaala sida sawirkaas ka muuqata halkan waxa ku yaala printers halkan waxa ku yaala system key halkan waxa ku yaala waxa ku yaala switch ayaa ku yaala soo marka maxaa la yiraahdaa waa home small home network kan marka waa soho guriga dhexdiisa xafiis lagaaga sameeyay ku raaxayso banaanka helen marka sidoo kale medium to large networks ayaa jira such as iyagu waxa loo isticmaalaa corporationska meelaha maartay dawladaha kale iyo waxyaabahaas oo kale iyo ayaa loo isticmaalaa xafiisyada maartay maxaa la yiraahdaa waa hawl dheer iyadu xafiisyada maartay isbitaalada waxyaabahaas baa loo isticmaalaa sidoo kale yani the internetka is a network it's a network of networks waa networkyo ka dhashay networkyo kale daadkaasoo ama kuwaasoo connect xiraya isku xiraya hundreds of millions malaayiin maartay computer ah ee dunida dhexdeeda yaala globalka yaala marka sidoo kale another type kamida network waa mobile deviceska kuwa aynu isticmaalno smartphoneska haday tahay smart watcheska smart glasseska oo imika dunida casriga soo baxay tabletska oo aan u isticmaalna waxyaabo badan haday tahay tradingka haday tahay inaynu maartay wax ku sharaxno haday tahay inaynu wax maartay ka barano haday tahay inaynu wax muxaadaro ka jeedino inaynu akhrisano xooga ka buugaag ka akhrisano in kastoo uu dhaamo maartay buuga caadiga ee la soo gadanayo ee la akhrisanayo marka waxa kamida mobile deviceska aynu isticmaalno ayaa kamida aaladaha telefonka oo maartay maxaa la yiraahdaa way badan yihiin aaladaha telefonka marka lagu leeyahay waa badan yihiin marka smartphoneska soo kamida oo kuwa shaashada aynu isticmaalno oo shaashada laga riixriixo waxa kale oo kamida tabletska sidoo kale waxa kamida smart watches ayaa kamida saacadaha imika smartiga ah ee orodkaaga iyo yani dhiigaaga pulseska iyo wadnihii xisaabaya marka the internet marka connects wuxuu isku xirayaa more computing devices aalado xisaabeed ayuu isku xirayaa wax bay xisaabayaan iyagu quantitation ayay sameynayaan wax baa la xisaabayaa macnaha wax baa la xisaabayaa markay tahay waxa waaye isaga xisaab un buu aqrinayaa oo la yiraahdo eber iyo hal buu aqriyaa eber iyo hal iyadoo xisaab ah wuxuu kaaga dhigayaa marka war buu kaaga dhigayaa war iyo wuxuu kaaga dhigayaa iyo sawir iyo muuqaal buu kaaga dhigay yani wuu ku soo turjumayaa marka warkaas waxa ku hadla luqadaas bidka la yiraahdo waxa ku hadla desktop computerska ku hadla iyo network deviceska iyo laptopska ku hadla there are waxa jira marka devices aalada jira all around adduunyada dhan that you may interact with aad la falgali karto aad la macaamili karto on daily basiska yani adoo ku qabsanayo waxyaabaha maalinlaha ah adoo internetka maartay isku xiraya
marka waxaa ka mid ah marka aaladahaasi smartphoneskan aan imika aynu aragno. Smartphone-ka adoo wata meel walba dunida jooga ayaad internet haddii aad ku xirato waxaad access u helaysaa inaad maaragtay call aad qof wacdo, waxaad access u helaysaa camerado inay kuu shaqeyso, waxaad access u helaysaa GPS-ka. hadda adduunyadan maaragtay reer galbeedka ay horumartay addressyaha ku kaydsan GPS system-kan waa global maaragtay positioning system waxa la yiraahdo. mafahantay mapkan adduunyada iyo waxyaabahaas marka laga soo tago GPS-kaas wuxuu hayaa xogta magaalooyinka iyo addressyada iyo guryaha iyo dhismayaasha caanka ah. Google-kana maaragtay maxaa la yiraahdaa badanaa maaragtay Google-ka shirkadda Google-kana sameysay application-kan. Okay, waxyaabo kale oo dheeraadna waa la sheegaa oo Illuminati baa iskale waxyaabahaas baa la yiraahdaa shirkadaha Illuminati baa maalgeliyay wall no talama taas hadda. marka media player yani waxyaabaha maaragtay waxa codad baa ku dhageysanaysaa, waa soo degsanaysaa codadku. Touch screen computerska, tabletskaas ka mid ah aan aragno. waxa kale oo ka mid ah smart watcheskaas iyo glasseskaas ayaa ka mid ah. marka waxaan ma usii gudagalayo sharaxaadoodu waa muhiim inaad note ka qorqorato. haddii aanad wax note ah qoranin micnuhu ma fahmi doontid waxa laga waramayo. koorsadan ma ka heli doontid koorsadani jaamacad yani maaragtay ku dhigaysa waa hubaal kama heli doontid koorsadani ka faa'iideyso. haddana weli qof yani maaragtay igaaga horeeyay ma aanu jirin network essential qof duway maaragtay maxaa la yiraahdaa Soomaali ku duway ee soo dhigay si bilaasha. marka koorsadani muhiim bay ku tahay haddii aad iyadu barato waxaad concept good ka haysataa, network oo dhan ayaad concept good ka haysataa. waxaad kaloo noqonaysaa shakhsi yani technician ay farsamo yaqaan ayaad u gudbi doontaa oo qaybta farsamada ayaad gudbi doontaa marka aad conceptigan aad barato. laakiin hadhow dib bay kugu noqonaysaa adoo conceptiga haysanin inaad farsamada barato. marka conceptigan waa muhiim, si qurux badan baan kuugu faahfaahinayaa. marka connected home devices ayaa ka mid ah network-ga. security systems-ka ee guryaha lagu xiro ayaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa baashan oo maaragtay ku soo fiirinayso meelaha ku xiran kaamirooyinka oo hadda imika dad baad arkaysaa meelaha isaga xirtay oo dukaamada qaar isaga xirtay haddana waxbaa laga xadayaa. waa cajiib, Soomaaliya nooc walba yaala. marka applianceskaas waa ka mid ah oo sida hadda LG TV-yada iyo waxyaabahaas maaragtay ayaa ka mid ah qasaaladaha ka mid ah qaarkood oo ku shaqeeya ayadoo loo isticmaalayo remote maaragtay maxaa la yiraahdaa connection ahaan loo isticmaalayo. kaas markuu yahay remote connection macnaha internet oo haystaa waa IP address oo haystaa oo aan muuqanin. ma fahantay? waxaa kaloo ka mid ah smart TVs-ka ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah Google Counters-ka ka mid ah. marka qofka u baahan asoo qoraal ah buugan waa iga heli doonaa qaybta description-ka ayaan kusoo qorayaa maxaa la dhahaa numberkayga WhatsApp-ka waad igala soo xiriiri kartaa si bilaash ayaan ku siinayaa. marka other connected devices-ka marka aalada kale ee markaas oo maxaa la yiraahdaa loo isticmaalo ayaa jira. xoogaa waxaad moodaysaa inaan ku yara dheeraaday koorsado. qaybtan ayay noogu dambeynaysaa intaynu maalinta xigta aynu ka kulmi doono maalinteena saddexaad iyo koorsada network essential. waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.